بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وجعله سبيلا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبرنامج كيني رمضان كإي إسلامك وكبح بش رمضان تلفزيون كصومالي ناشونال تي في. إن شاء الله تبارك وتعالى عاوة موضوع انكسو قاضنا إنه برنامج كنا وحوية بش رمضان إي قرآنك. الحمد لله إلهي بأن نسوق قارسي بش رمضان على قدر كده حيسا بش رمضان إي قرآنك iyo salafkii sida ay ugu dadaali jireen waqtigan qiimaha badan akhrinta quraanka. Ilaahi subhanahu wa ta'ala ba quraankiisa noogu sheegay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran, bishan inay tahay bishii quraanka la soo dejiyay. Ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa kaloo yiri bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr. marka waa bishii quraanka la soo dejiyay. calaaqadaas baa ka dhaxaysa bisha ramadaan iyo quraanka. salafkeeni rahimahumullah aad bay u dadaali jireen. Uthman bin Affan radiyallahu anhu saxaabiga weyn wuxuu oran jiray markuu quraanka ka hadlayo law tahurat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum. hadday quluubtiinu daahir ahaan lahayd oo nadiif ahaan lahayd kamaysan dharagteen kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala akhrintiisa kamaysan dharagteen. Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxaa sugan in uu quraanka oo dhan bisha ramadaan uu ku tukaday hal ragcadood oo quraanka oo dhan inuu hal ragcadood ku tukaday. Imaamu Shaafici rahimahullah isagana bisha ramadaan waxaa sugan in uu 60 jeer khatimay quraanka kariimka ah oo macnaheedu yahay 24 saacba laba jeer buu dhameey jiray, habeenkii iyo maalintii. khatma habeenkii iyo khatma maalintii 24 saac ayuu laba jeer dhameey jiray. 60 jeer buu bisha ramadaan u khatimi jiray. Allahu akbar. Imaam Malik oo imaam daar al-hijra oo imaamka xadiidka ahaa isaguna mar allaala markay bisha ramadaan ay soo gasho duruusta xadiidka iyo casharadii uu dhigi jiray meel intuu iska dhigo ayuu wuxuu qaabili jiray quraanka kariimka. bisha ramadaan oo dhan quraanku akhrin jiray, duruusti kalena wuu joojin jiray. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ayaa wuxuu leeyahay jihaadka ayaa naga ka mashquuliyay quraankiyo oo cudur daaranaya. jihaadka ayaa naga ka mashquuliyay wali maanta annaga quraanka akhrintiisa waxa naga mashquuliyay waa jihaaska iyo telefoonada aan isticmaalayno. waxa laga yaabaa maalintii dhowr saacadood bal 5 saacadood 6 saacadood in qofku uu ku bixiyo telefoonkiisa. waxa uu daawanayna ay ahaato wax bilaa macna darro ah inuu waqtigiisa ku dhaafo. bahalkaasana mashquuliyay. haddii aan kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtigeena aan gelin lahayn oo waqtiga aan gelinayna waxyaabaha kale ee bilaa macnada aan quraanka ilaahay akhrin lahayn quluubteena waa isbedeli lahayd, nolosheennana wax badan baa iska bedeli lahaa. sababtoo quraanku waa daawo, quraanku waa raaxo, tumaaniina iyo sakiina ayuu wataa quraanku. nolosheena wax badan ayuu ka bedeli lahaa haddii aan waqtiga waxyaabaha kale ku dhumaya aan quraanka gelin lahayn. walaalayaal, nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu noo sheegay quraanka iyo soomka inay qofka u shafeeca qaadayaan maalinta qiyaama. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. maalinta qiyaamada quraanka iyo soomku qofka u shafeeca qaadayaan waa u argeynayaan. quraankii wuxuu leeyahay ilaahayow
hurdadii baan seejiyey oo habeen oo dhan wuu akhrinayay salaad buu u taagnaa wuu tukanayay hurdadii baan seejiyey ya ilaahayow iga shafeeca qaad soomkiina wuxuu odhanayaa waxaan seejiyey cuntadii maalin oo dhan buu dartay u soomanaa wuu u shafeeca qaadayaa isaguna marka maalintaas dhibtu ay jirto ee qof walba yaaban yahay ee culaysku uu jiro ayaa qur'aankii iyo soomkii qofku uu soomi jiray iyo qur'aankii badnaa uu akhrin jiray wuu u shafeeca qaadaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu xadiis inoogu tilmaamay in qur'aanka uu u shafeeca qaadayo qofka la saaxiibay inuu qur'aanku u shafeeca qaadayo maalinta qiyaama qofka la saaxiibay waa kee marka qofkaasi waa qofka waqtigiisa ugu badan qur'aanka geliyay qur'aanku la sheekaystaa ilaahay subxaanahu wa tacaala buu la sheekaystaa sababtoo ah maanta waxaa laga yaabaa inagu saaxiibaan leenahay saaxiibadaas waxaad jeceshahay mar walba inaad la kulanto inaad la sheekaysato inaad is aragtaan inaad waqti isla qaadataan qofka qur-aanku u shafeeca qaadayo qofkaasi wuxuu waqti geliyey oo saaxiib uu ka dhigtay waa qur'aankii weeye maalintaas qiyaamadana wuu u shafeeca qaadaya qur-aanku walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala darajuu ku siiyaa dadka qur-aanka ilaahay darajuu ku siiyaa qofkii bartay ee ku dhaqmay weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankan dad buu ku kor yeelaa oo darajo uu ku siiyaa qaarna hoos buu ugu dhigaayo waa ku duleeya nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasuu noo tilmaamay maalin maalmaha ka mida cumar ibn khataab radiyallahu canhu ayaa markuu amiirka ahaa magaalada maka duleedkeeda ama banaankeeda ayaa waxay ku kulmeen ninkii markaa magaalada maka barasaabka ka ahaa oo ka talinayay ayay ku kulmeen isagoo markaa madiine ka yimi madiine ayuu isagu deganaa laakiin xog waran iyo inuu waraysto darteed ayay halkaas ugu kulmeen markii uu u yimi saxaabigii Umar ibn Khattab wuu waraystay magaaladii buu ka waraystay wuxuu ku yiri magaaladii Maka ahayd yaad uga timi maadaama adigu aad halkan joogto wuxuu ku yiri waxaan uga imi ibn Abi Abza nin la yiraahdo Umar uu garan waayay ninkaas wuxuu ku yiri waa kuma ninkaas markaas wuxuu yiri mawla min mawalina waa nin adoomadayda kamid ah markaas Umar wuxuu ku yiri manin mawla ah ba waxaad ku soo dhaaftay magaaladii Maka markaas wuxuu yiri ninkii saxaabiga ahaa amiirul mu'miniin oo ninkaas waa nin qur'aankana xifdisan oo yaqaana cilmiga faraa'idkana yaqaana iyo fiqiga markaas Umar wuxuu yiri radiyallahu anhu waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi aakharin kitaabkan ilaahay subhanahu wa ta'ala dad buu ku kor yeelaa dadna hoos buu ugu dhagaayo waa uu ku duleeyaa ninka mawlaha magaalada Maka mas'uuliyadeeda wuxuu ku qaaday waxa weeye kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala laabtiisa uu ku wado ay xambaarsan yahay iyo cilmiga uu bartay qabiil looguma dhiibin xigta kale looguma dhiibin waxa loogu dhiibay waxa weeye aqoontiisa iyo diinta uu yaqaaniyo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ee uu xambaarsan yahay Bilal radiyallahu anhu waxa uu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku kor yeelay waxay ahayd kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala dad buu hoos ugu dhigaa nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkii Abu Lahab suurada baa ka sheekeynaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة با إلهي سبحانه وتعالى كسو دجي سوى النبي أدير كيسة حقي يدينتي مركو كل يحضي أي سورة إلهي كسو دجي إلهي با كدو لي قرآنك سورة داس سجي كشاكيني سايو
islaantiisii oo nabi sallallahu alayhi wasallam dhibaato badan u geystay marka quraanka dadna ilaahay waa ku duleeyaa dadna ilaahay kor buu ugu qaadaa quraanka waxa laga helayaa sakiina iyo deganaan iyo xasilooni qofku quraanka markuu akhrinayo waxa ku soo degaysa deganaansha ku soo degaysa malaa'ig baa soo degaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam nin saxaabada kamida Bara ibn Aazib ayaa waxa uu leeyahay radiyallahu anhu kana rajulun yaqra surah al-kahf nimba wuxuu akhrinayay surah al-kahf buu akhrinayay habeen iyadoo ah ninkaas ahadiith kala tilmaamaysa inuu ahaa Usayd ibn Hudayr saxaabi la oran jiray radiyallahu anhu وعنده فرس مربوط أكتي سنة وحاكوحنا فرسكيس بشطانين لما حريق بوكوحنا وأدق قرآنكو أخريني فتغشته سحابة مركاسا وحا صوت دبوشي ضرور با صوت دبوش ضرور با صوت دكتي مركاسا فرسكيسي مر الله لمكو قرآنكو وضو جعلت تدنو ويسو دوانيسا ضرورتي مركو أخريبا ويسو دوانيسا مركو تشوتيانا ويستاغيسا مركو سي ودنا هوس بي سو دغيسا فجعل فرسه ينفر منها فرسكيسي كخدنا اكتي سنه وحو بلاابay inuu cararo oo fakado oo xarigi inuu goosto isku dayo sababtoo ah daruurta soo degaysa ee marba soo dhawaanaysa ayuu ka argagaxay markaasa saxaabigi falamma asbaha ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadhakara dhalika lahu markuu waagi bariyay ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam u yimi wuxuuna u sheegay arintii buu u sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri tilka as-sakiina tanazzalat lil-qur'an waxay ahayd deganaansho iyo xasilooni la soo degtay quraanka kariimka xasilooni marka aad maqasho culimadu waxay ku fasireen waa naxariis iyo malaa'ig isla socota naxariis iyo malaa'ig isla socota marka malaa'ig iyo naxariis iyo xasilooni isla socda oo soo degayay bay ahaayeen daruurta aad arkayso nabigu xadiid kale wuxuu ku tilmaamayaa hadii aad sii wadi lahayd ilaa waagu uu ka bariyo dadkuna ay soo kici lahaayeen toos bay u arki lahaayeen arinta aad aragtay xalay laakiin markuu arkay wuu joojiyay oo arkay faraskiisina inuu baxbaxsanayo subaxina nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu arintii uga sheekay marka sakiinadaas iyo xasiloonidaas ayaa ku soo degaysa meelaha quraanka lagu akhriyo nabigeena kaleey salaatu wasalaam xadiid kale ayuu noogu tilmaamay majtamaca qawmu fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وحاوليه قرآنك وحاكو جرتا لح ميلود لح آيادات أيها وحالقو شاقي سكينة كلمة سكينة لح آيادات بالقو شاقي قرآنك ودن مركا وحير قفك لح دا آيادات أخرية قفك مرغة دريمية يولول dareemaya ya cabsi dareemaya hadii uu lixda aayadood akhriyo oo ku cilciliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa wuxuu gelinayaa xasilooni iyo deganaansho iyo wanaag baa ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa u gelinaya marka khayrka inta la eeg baa ku jira quraanka la akhriyo gaar ahaan bisha ramadaanna de waa ka sii xaq jirta ajarka uu ka badan yahay waqtiga kale quraanka aad akhrido oo ujuurta waa la labalaabi bisha ramadaan أعماش الله سمعيه ولا ليال نبينا عليه الصلاة والسلام وحو كلو تلمامي من قرآنك قفكو هدو أخرية وهلي النور وهلي با النبي صلى الله عليه وسلم أيمي مركاسو وحو كيري نبي الله إيدر دارا نبي صلى الله عليه وسلم وحو كيري عليك بتقوى الله وحد لازمتا عبسد إلهي سبحانه وتعالى إلهي كعبس مركاسو وحو كيري زدني يكرديو زيادي النبي صلى الله عليه وسلم حكيري عليك بتلاوة القرآن وحد لازمتا أخرنت قرآنك اللازم بيل وقرآنك إن بدن أخري فإنه نور لك في الأرض وحكون نقنيا نور إفتين أي يكون نقنيا قرآنك سجاك وهجيا إفتين بكون نقنيا وكإفنيا والنبي عليه الصلاة والسلام قلبك إفنيا والنبي صلى الله عليه وسلم وذخر لك في السماء
kaydna wuu kuu ahaan samadu kayd kuu ahaanoo ajarkiisana ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ayuu kuu yaallaa qur-aanka aada akhrisay ajarkiisa ilaahay subxaanahu watacaala baa kuu kaydinaya oo waa lagugu abaalmarinaya marka nuur buu kuu noqon qur-aanku akhrintiisa ood badiso nuur iyo iftiin iyo wanaag ayuu qofku ka helayaa walaalayaal nabiga sal allahu alay wasallam wuxuu noo tilmaamay xaraf walba oo aada akhrido qur-aanka in aada helayso xasano xasanadaasna 10 lagu dhufanayo oo halkii xasano 10 ajar ay ku noqonayso nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan inuu yiri qofka akhriya man qara harfan min kitaabillah falahu bihi hasana qofka xaraf quraanka kamida akhriya xarafka dartii wuxuu ku helayaa xasano wal hasanatu bi 10 amthaliha hasanaduna waa 10 halkii xasano 10 baa lagu dhufanayaa لا أقول ما أراني بير ألف لام ميم كلمة داس ما أراني بير حرف وهالحرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ألف تنوى حرف لام تنوى حرف ميم تنوى حرف ومعنى هذا هي قفكم مركو أخريو ألف لام ميم أجرك وهلا يوا صدا حسنة وهلا من فضل الله تبارك وتعالى وفضل إلهي سبحانه وتعالى ونسي ينحرسيس إن هذا حرف كلية أخرده إنها طبعا حسنة أدهليس فما بال قف قرآن كمالنتي جزء أخرية أما كبضن بأخرية محاد أمالين إساء أجرك أوهلي قفك قرآن كلما يسترى علماء وحي لهدين أجر أن لسوكه بكرم بوهلي آدو تيرا بضن وحرف والبا وكمدة حسنة ديسا أيوليها طبعا لقلو فني marka fadliga ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu noogu deeqay oo uu nasiiyay inaan ka faa'iideysano ay tahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu noo tilmaamay inuu yiri maalinta qiyaame ilaahay subhanahu wa ta'ala marka la hortago oo dadku ehlu jannada waxa lagu abaal marinaya oo ay ku kala koreynayaan oo darajaadkoodu u kala sareynayaan waxay tahay sidii quraanka u kala yaqaanaan وحلو أرنيا يقال لصاحب القرآن قفك قرآن كلا صاحبي قرآن كأخرية قرآن كبرتي حفظ سنة وحلو أرنيا اقرأ أخري قرآنك ورقة كر درجات كجنة كر وكر بالده جنة درجات كيدو شرن معها لفولة يا معها حلقة عادتكو إني كر مركل يرا شرن ونقاتان لكن سيدا اسمع درجات kasta waxa u dhaxeeya darajo walba iyo darajada kale kor la leeyahay waxa u dhaxeeyo ay culimadu tilmaameen ma bayna as-samaa'i wal ard dhulka iyo cirka masaafada u dhaxaysa ayaa u dhaxaysa wax yar ma wax sahlan ma markaas waxa la oranayaa darajaadka jannada kor kama kunta turattilu fi dunya sidaad u akhrin jirtay adduunyada marka aad joogtay ood u kala dhigdhigi jirtay quraanka u kala dhigdhig baa la dhahay fa inna manzilataka inda aakhir aayatin taqra'uha manzilada aad ka tagayso iyo darajada aad ku istaagayso waxay ku xidhan tahay aayada ugu dambaysa oo aad akhrido aayada ugu dambaysa oo aad akhrido ay darajadaadu ay ku ekaanaysaa marka maxaad u maleynaysaa qofka quraanka oo dhan yaqaanay oo xifdiyay maxaad u maleynaysaa qofka quraanka haaf yaqaanay marka waxa la doonayaa walaalayaal fursada aan haysano inaan ka faa'iideysano quraanka aan akhrino bishan ramadaanna si gaar ah maadaama bishii quraanka ay tahay nabigeena calayhi salaatu wassalaam malaku jibriil ayaa quraanka la mudaarasayn jiray bishan ramadaan oo la akhrin jiray taas waxay ku tusinaysaa nabigu dadaalka uu ku bixin jiray bishan inaguna insha Allah inaynu fursadan qaaliga ka faa'iideysano bishana aan ku noolayno acmaasha waaweyn quraankana aan akhrino oo aan isku dayno hal khatma xataa qofku inuu khatimo bishan ramadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka Allah inoo waafajiyo kuwa laga aqbalo khayrka iyo acmaasha bishan ilaahay hanagu daro hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in